أصحابتين قالقة وسلامتهين مركز أكون شان أجوكتان عز شرف يعافمات كسو دبادة بلا مشيني فلانقينتا قد بدأ سوق على قادم دونو عياره مامو قبل دادا سيمي فيناليه سومانتا لعياري دونو عمر عرسة أو نقضي كرصوري وهوريي سوماليا كسو موضوع عيارها كافة عاون soo muuqan doono qodobkeena saddexaad kulamada laga ciyaari kooxaha xaray iyo kulamada la ciyaari doono aad iyo aad ugu mahadsantihiin asxaabteena qaaliga ah sharaf leedihiin ma sha Allah waad mahadsantihiin aad iyo aad qodobkeena koowaad sida aan la wada socono aan wada ognahay waxaa galabta dhici doona kulankii semifinalaha ee ay wada ciyaari doonaan hirshabeelle iyo jubbaland hirshabeelle oo kusoo baxday kaalinta koowaad iyo jubbaland oo ayadan kusoo baxday kaalinta afraad ayaa isku dhacay sida aan wada ognahay aan la socono kulanka waa mid ka xiiso badan kama xamaasad badan kulamadii hore ay soo ciyaareen labada maamul goboleed sida aan wada ognahay kulanka ay wada arkeen oo groupkan hadda ay ku wada arkeen waxaa labi eber ku badisay Jubbaland oo ku badisay labi eber guusheedii ugu horeysay ay gaartay ayna ahayd kooxda Jubbaland oo laba kulan hore loogu soo badiyay markii Hirshabeelle ay ka badisay ni ahaan iyo moral ahaan kor u soo kaceen banaatirna bareejo la galeen Hirshabeelle ayaa bareejo la gashay Galmudug laba kulan forfait ku qaadatay kulan laga badiyay marka la arki doonay galabta semifinalaha oo iskaga hor imaan doonaan ay wada ciyaari doonaan kaalinta koowaad iyo kaalinta afraad ayagoo soo wada galay la arki doonay ciyaartana waa ciyaar aad iyo aad xiisadeeda iyo xamaasadeeda wadato taageerayaasha qaaliga ah dhammaan ummadda Soomaaliyeed in lagu dadaalo deganaanshaha in lagu dadaalo ciyaartooyda badqabkooda iyo dhammaan taageerayaasha dadweynaha badqabkooda kulamada noo Arsenal insha Allah rajeeyna biidhnillaahi raxmaan inay ku dhamaan doonaan insha Allah garsoore Umar Cabduqaadir Umar Arse oo ahaa garsoorihii ugu horeeyay ee dalkeena Soomaaliya soo noo matalay ee kaafa ciyaaraha African of Nation Cup ee ka socda dalkaasi Ivory Coast ayaa wuxuu ka soo muuqday kulan oo dhexaadinay dhexda ku jiray iyo kulan uu fadhiyay keedka runtii oo aad iyo aad loogu amaanay oo run ahaantii bejka kaafa bejka qoraalka lagu soo qoray ayaa wuxuu u qornaa sida tan ee aad arkaysaan oo waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan aragno garsoore Soomaaliyeed oo Umar oo kale oo muddo dagaaladii kadib Soomaaliya garsoorayaasheeda dhammaan qaybaheeda kala duwan oo kubadda cagta oo horumar sameynaya Umar Cabduqaadir Umar Artana aad iyo aad wuxuu ka mid yahay dhalinyarada aad iyo aad sanadaha dambe aad u soo baxay soo shaabaxay sidaas daraadeed waxaan leenahay hore u soco Umar Soomaaliya horumarada ay sameynayso aad iyo aad aan ugu faraxsanahay ma sha Allah Umarna caawo ciyaartaas ayuu qaban doonaa biidhnillaahi raxmaan insha Allah waxaan rajeynaynaa Umar inuu hore u sii socon doono ilaa iyo ciyaaraha World Cup-ka inuu matali doono rajeynaynaa insha Allah biidhnillaahi raxmaan qodobkeena saddexaad ciyaaraha African of Nation Cup ayaa si xiiso leh u socdo sida aan wada ognahay waxaa la wada ciyaaray tartamadii kulamadii saddexaad kulamada saddexaad ayaa waxaa isku wada arkay Equatorial Guinea iyo Ivory Coast 4-0 waxaa ku badisay kooxda martida ahayd ee Equatorial Guinea Ivory Coast oo marti loo ahaa oo koobkaas marti gelinaysay ayaa kulankeeda labaad laga badiyay Equatorial Guinea ayaa waxay ku soo baxday 7 dhibcood halka Ivory Coast ay ka leedahay 3 dhibcood kulamadii xal la ciyaaray ayaa wuxuu ahaa Cape Verde iyo Egypt Cape Verde oo labada kulan hore soo badisay ayaa kulankeedii saddexaad xalay
bareejo 2-2 la gashay Egypt Egypt ayaa labada kulan ka horeeyay bareejo la soo kala gashay Mozambique iyo Ghana nasiib wanaag Egypt oo ka maqan yahay laacibkoodii Mohamed Salah ayaa bareejo 2-2 la galeen Cape Verde saasna ugu soo gudbeen 3 dhibcood saddexda kulan waxay galeen bareejo ay galeen Ghana iyo Mozambique ayna bareejo ay galeen 2 dhibcood ay kaalinta afraad iyo kaalinta saddexaad ku kala fadhiisteen Cape Verde iyo Egypt ayaa waxay noqotay group B labada wadan ka soo gudbay kulay kulamada caawa la ciyaari doono hadii la idin insha Allah kulamada saddexaad la arki doonee wadamadii kale soo baxaan oo soo gaaro ciyaaraha wareegga 16 caawana waxaa la ciyaari doonaa 2 kulan oo ay wada ciyaari doonaan group C iyo group D Gambia iyo Cameroon Guinea Senegal Angola Burkina Faso Mauritania Algeria saan hore u ogeen Senegal 6 dhibcood ayaa wadataa banaanka ay ku soo baxday Guinea ayaa iyaduna waxay wadataa 4 dhibcood oo la ciyaari doonto groupkaas Senegal ayaa hogaaminayso saan u sheegnay Senegal 6 dhibcood Guinea 4 dhibcood Cameroon 1 dhibcood Gambia eber leedahay haddii marka Cameroon ay badiso oo Gambia ay ka badiso Guinea Senegal ay ka badiso Cameroon rajadeedu waa fiicnaan doontaa haddii laga badiyo ama bareejo ay gasho Cameroon waa u dhamaatay taasay ku haraysaa waa kooxii waaweynaa ee lagu yaqaanay wadamada Afrika saas oo kale waxaa wada ciyaarayo Angola iyo Burkina Faso Mauritania iyo Algeria groupkan Angola iyo Burkina Faso waxaa hoggaanka u hayo Angola 4 dhibcood Burkina Faso 4 dhibcood Algeria 2 dhibcood Mauritania eber leedahay rajadu waxa aad iyo aad u leh Algeria oo la ciyaari doonto Mauritania oo labada mar laga soo badiyay Angola iyo Burkina Faso waa isku dhici doonaan qolkii badi wuxuu tagi doonaa 7 dhibcood haddii bareejo galaan min 5 dhibcood haddii Algeria ay soo badisana waxay labada imaad doonaan min 5 dhibcood halka goolasha hal gool ay ka wataan Algeria aysan wax gool ay wadanin maadaama bareejo ciyaarada ay soo dhamaadeen kulli bal arki doonaa insha Allah kooxihii soo gudba groupka 16 quarter finalaha ciyaaraha koobka African Cup of Nations oo si xiiso leh ugu socdo dalkaasi Ivory Coast habeen dambana duulaha idmo waxa wada ciyaari doono Mozambique iyo Mali South Africa Tunisia saas oo waxaa ciyaari doono Tanzania iyo DR Congo Zambia iyo Morocco haddii aan fiirino groupkaaseti ama groupyadaaseti group E waxaa hogaaminayso Mali 4 dhibcood Namibia 3 dhibcood Tunisia 1 dhibcood South Africa 3 dhibcood saas oo kale groupka F Morocco 4 dhibcood Tanzania 3 dhibcood DR Congo 1 dhibcood Zambia 1 dhibcood waxaa dareemaysaa mar gruubyada inay aad u qasan yihiin kulli bal arki doonee wadamadii u soo gudbaan ciyaaraha kama dambaysta maartay wareegga 16 ah bariga Afrika ayaa waxa ka socota dalkaasi Tanzania oo rajadeeda aad iyo aad ay u fiican tahay hal kun ay badisay oo 3 dhibcood ay leedahay kulanka hadda ugu dambeeyana waxay la ciyaari doontaa Tanzania DR Congo oo 1 dhibcood leh Zambia iyo Morocco waa isku dhici doonaan la arki doona insha Allah ciyaarahaas oo aad iyo aad u xiiso badan dalkaasi Ivory Coast ay ka socoto Ivory Coast ay iskaga xartay asxaabteena qaaliga aad iyo aad ugu mahadsantihiin مع السلامة.